بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan maanta waxaan kaga hadlayaa arrimo yaryar oo aan muddaba aan ii muuqday oo maadaama dawladdii ay sanad gaadhay aan dooranay ay la noqotay qalloocyo ku jira ama dadka kala fogeynaya inaan madaxweynaha kala taliyo uma sheega arrimahaas inaanay ku qurux badnayn muddadaas sanadka ah inteedii dambe oo dhan khaladaadkaasi way ii muuqdeen ama ilaa markay bilatay laakiin waxaan aaminsanaa war madaxweynaha mar haddaad raggii doortay ka mid tahay ka hadalkiisu waxun baa la odhan doonaa madaxweynihii bay isdileen oo walaa dee si kale dadku waxu fakara ay waxu eegaane iska daabaan islaa laakiin haddana waxaan soo qaatay mahmaahda Soomaaliyeed ee odhanaysa rag aamusay iyo riyo aamusay labaduba reerkoodii gabe nin odayana waan hoo wixii wax xumaynaya intii hadhowto la odhan lahaa wallaahi niyo arrintaas markii hore ka hadal lahayd inaan ka hadlo saasay ugu muuqatay arrimahaasi marka horeba madaxweynaha anigu raggii doortay baan ahaa waxa ugu weynaan u dooranayna waxay ahayd inuu ummadda mideeyo mucaaridkiiyo maxaafidkaba mideeyo waxaan u arkaynay nin capacity weyn oo labadaaba isu keeni karaya inuu yahay waxaan u arkaynay cidda wax tabanaysay ee ugu weyn inuu reerka abtiga u yahay cidda uu ka soo jeeda laga tabanayaana inuu reerka kale uu ka dhashay yahay maadaama uu arrimahaas oo dhan koobsaday waxaan islahayn waa qofka ugu habboon ee arrintaa dhammayn karaya madaxweynuhu intii doorashadu socotay intuu campaign-ka waday wuxuu ahaa nin aad u karti badan nin aad u aqli badan nin aad u hadal macaan sheekooyin badan oo ka sheekaysanay dib wuxuu ahaa nin aan u arkinay inuu munaasib ku yahay laakiin madaxweynuhu markuu meeshii qabsaday nin aftahana baa igu yidhi war madaxweynuhu xitaa hadalkii macaanaa ee maalintii uu doorashada galay uu jeediyey qalinkii ma raacin qalinkii sida hadalkii macaanaa uma macaanaan marka madaxweynuhu halkaa saluug badan baa ka muuqday anuu hadalka maag fadhiisto madaxweynaha waxaanu isku ogeyn maalin baanu kala hadlay oo warniyo reerka aan ka soo jeednay ciida gale wasiir qura ayaa dawladdii hore Siiraanyo kharribay war wasiir wadigan imaka campaign-ka ku jiray wasiir noogu dara wuxuu noogu maahmaahay berigii dawladdii Siyaad Barre ayaa wuxuu yidhi markii aynu ka guuleysanay ayaa anagoo saraakiiloo meel fadhfadhin huriga noo soo galay ninkii maxamed cumar huriga la odhan jiray dabeedna wuxuu yidhi annagoo le waarmiyaynu goosanaa waarmiyaynu ma dawladdii baynu sugnaa ayuu yidhi warhaadha waarnimayo haddaan huriye ahay dhowr iyo 20 sannadood ayaan basbaas u ahaa islaan aan ku mateli jiray isna oday mateli jiray markaan imika meelaha joogno islaantii un baan isu qaataa markuu ila hadlo hadalka waan la gabadaa markaa waarnimayo in badan bay xamarin haysatee waa sidii huriyo waa sideedii oo kale oo islaan un baynu noqonay aan maruun codka kor u qaadnay goosta buu nagu yidhi waxaan uga jeedaa buu yidhi war imanka dawladdan Siiraanyo aniga wuxuun baa haddaan talaba soo qaado waxaa loonaya war adiga kursigaan ku saaraynaa halkaa iska fadhi dabeedna sidii huriyo ayuun baan noqday markaa waanu ka garowshanay madaxweynaha waxaan leeyahay maanta ma huriyaatay maanta adaa qalinkii haya adaa dawladdii haya wixii aan markaa ka cabanaynay sidii bay u taagan yihiin ciidagalo qoro hadli maayo dadkana waa wada caynkaa waxaan anigu miisaanka dadka aaminsanay inay miisaanka la isu saaro garxajis iyo awal ciidagalo iyo ciise muuse dee markaa ciidagalo iyo ciise muusena waa idin muuqataa labada midna habeen buu xigaa midna way dhaleen dee wuxuu ciidagalo siiyey iyo waxa uu siiyey waliba ciidagalo iyo garxajisna waxa dadkii wax tirsanayay u baahnayd inuu gacan mariyo halkaa madaxweynuhu wuu la seegay intaasna waneegna waxaan lahayn inuu wuxuu bedelo ilaa imakana halkaa waxba kama bedelin waliba wasiirkii maaliyaddu dee markii hore noogu baaqay isagiina dib uu la noqdo dee waa ka waxbarashadii wax noo dhiibay ciidagaluhuna intaa waan arkayo wali wax mucaaradada may samaynin dee waan baradaad kugu gubatay oo dee ninka aad abtiga u tahay hadduu waxba hagaajin waayo
dee eedaabad bari yeelanaysaa waxaad dee markaa aniga lafteedu waa iga tusaale halkaas waa qodob aan qoonsaday qodobada labaad ee aan qoonsaday waxaa ka mid ah markaa waxaan leeyahay madaxweynaha waxaanu filaynay dee inaad mucaarid iyo maxaafidba madayso iska daa mucaaridkiioo cidda u badanaya imaka hadlaysaa ee wax saluugsanay waa maxaafidkii mucaaridkiina umaynaan tegin oo weli maad gaadhin muxaafidkiina saluug badan baa ka muuqda markaa madaxweyne waxaan kula talin lahaa bal arrintaa inuu dib u eego inuu dee wax saxo wixii laga filayey in laga helo mucaarid iyo dad ma garanaysaa lama waayo dadku waa saddex qaybood qayb xil bay ku mucaaridaayoo dee iyadu xil ay hesho mooyaane dee arrinkoodu ma saxna qaybina hunguri bay ku maxaafidaa qaybina waxay ku maxaafidaa waxa caqliga ah saddexdii qoloba arrintaa imika waa saluugsan yihin markaa dadka caadiga ah ee iyagoo aan hungurina kaa doonayn xilla aan kaa doonayn ee caadiga ah ayaaban arrintan ku qancin marka waxaan leeyahay arrintaasi ku noqo dee ballano badanna wuu qaaday taasi anigu waan kala talinayaa ta labaad waxaa jira guri yaroo halkan hudheelahoo laga dhisayey airbortka oo nin reerahan anigu aan ka soo jeedaa la siiyey gurigaasi amar madaxweyneha imika lagu joojiyey dowladdii siiraanyo dhulkay bixisay ilaa cigaal dhulka waa la bixinayo dhul dowladeedoo la bixiyo cigaal baa ugu horreeyo saribadda oktoobar buu bixiyey oo saribadii dadweynaha ee lagu ganacsanayey ahayd ayuu nin siiyey tii riyaalana waynu garanaynaa dhulku bixiyey siiraanyana waynu garanaynaa dee madaxweynuhu markaa awoodda lihi isagaa dee takrifalka iyo bixinta leh dee anigu imika waxaan filaynay madaxweynuhu hadduu wax qabsanayo dee inuu dikreeto soo saaro idhaa wixii madaxweyne bixiyey oo dhan waan ka noqday waa filaynay oo caama maanaan filaynin gurigaa in keligii la qabsado iyadoo aynu ognahay in toonkii magaalada la wada bixiyey fooqaqa ku yaalla aynu ognahay marka madaxweyneha waxaan leenahay soomaalidu waxay tirahaa wixii xile islaameed ku furmo nin baa yidhi ayaa xilhayna ku furmaa wixii xile islaameed ku furmo ayaa xilhayna ku furmaa guryihii la bixiyey ee dhisan iyo kuwa qabyada ah iyo wixii dowladihii hore bixiyeen ubukaasina lamdii haddii aad ka soo wada celisana muqtadiyan haddaad u wada deynaysana waa la midun laakiin madaxweyne kaa yeeli mayno oo suurtagal ma aha oo ummadda way kala dilaysaa inaad tidhaaha uun hal nin baan meeshiisa qabsanaya wuxuu haystaa waraaqdii siiraanya ugu saxeexay wuxuu haystaa sharcigii dowladda hoose wuxuu haystaa warqaddii ekaawa soo qortay ninka intaasoo dhan haystaa dee waa imika joojintaasi anigu dad badan imika way kala hadleen oo u kaadiya baanu isno waanu ka dursugno dhowr qof baa u tegey wax lagu qanco lagama helin marka madaxweyneha waxaan leeyahay arrintaasi aad bay u damaqday dadkan ummadda u damqaysaa waana sii kala fogeynaysaa arrintaa ka noqo oo ninkaa gurigiisa meeshii la siiyey u fasaxa qodobka labaad in ka hadlaya waxaa weeye waxaa jiray niman beri dhaweyto sheegtay maayiro oo aanu aada runtii uga xanaaqnay oo annaga beesha iyada ahayno aan ka wada gelgelino o nihi warniyo arrintaasi meesha may leegayn tiraba 30 oday baanu ugu tagnay wasiirka arrimaha gudaha isagaaba noo yeedhay waanu wada hadalay waxaanu waxaasi waxaanu ogeyna maaha wax meesha leegna maaha nimankaa sameeyeyna niman maayir iyo ciditoona la socoto maaha waxaa ku jira qaar qudyaana oo markaa baxsad ku maqnaayo magaaladaba ka tegey dabad waxaan ku niyo nimankaa xadhigaasi dee arrinkii waa u buunbuuninaya nimankaa fara ka qaado oo iska saamax annaguna aan dee wixii aan dee iyagana ha hadlaan oo inaanay waxaa ku jirin dabadeedna wasiirka arrimaha gudaha wuxuu nagu yidhi nimayo arrintaasi anigana midh baan yeelayaa idinkuna midh sameeya ninkaa curyaankaa keena buu yidhi
markaa keentana waxaan idin ballan qaadayaa inaan faraha ka qaadno oonaan waxba xidhin ninkii curyaanka hadda curyaanku weliba maaha mid lugla mid waa mid fadhiya weeyaan oo gurguranaya curyaankii baan u yeedhnay war arrintii way dhammaatee dee kaalay curyaankii magaaladaan keennay curyaankii waa la xidhay curyaankii waxaana la yidhi sharcigaa la marinaya curyaankii waa la xukumay annaga imanka waxaa nooguba daran curyaankii oo maalin walba dadka soo garaacaya oo le waarnimayo anigu curyaan baan hoo xarig xamili maayo oo dee nin curyaana waa garanaysaan oo suuliga geli kari maayo oo dee 110 arrin qaab buu u meydhan jiray oo dee qaab oo yacni dee curyaan waa garanaysaan idinkaa isoo wanjalay oo ii yeedhay ma waxay igu yeedhaysaan idinkiiyo iyo mashruuca ka ahaydeen dadkii ummaddii aanu odayaasha u ahayn waxay leeyihiin nimankiiba dee nimankanaa wanjalay arrintaasi dabadeed dee annagana shaqadaydii dambe waxbay yeelaysaa xidhiidhkii dowladda iyo odayaasha iyo beesha ka dhexeeyana waxbay yeelaysaa mar haddii nimankii la xukumay curyaankaasaa noogu daranay nimankaana waxay ila tahay kuwii la sii daynaya waxba kamay sidaninay iska sii daa madaxweyne inkastoo anagu aan dareensannahay ninka maayir sheegtay ee iyadoo magaaladii dhisan waxaa sheegtay inaanu wax wanaagsan samaynin oonay meesha leegayn haddana waxaan leenahay maanta kan dee mar haddaa idinku nala ballanteen annaga markii hadduu wasiirka arrimo gudan odhan la adeer oo nimankan saamixi mayne faraha ka qaada dee waanu iska tegi laynin laakiin curyaankiina ku soo dara imakana sharcigaan marinna arrintaasi dee waa arrin annaga nagu dhiban arrintaana waxaanu leenahay weliba waxaan warka ku hayaa in wasiirka arrimaha guduhu in badan iminka ku dadaalay in la sii daayay xagga madaxweynaha ay ka xidhan tahay arrintaana iyadana markaasaan ka sheegayaa marka arrinta ugu dambeysan ka hadlaya waxa weeye kililka shanaad waxaa ka dhalatay dowlad runtii soomaali oo dhan ku diirsatay waxaan dowladda anigu mar dhaweyto jigjigaan tagnay madaxweynaha waanu aragnay waxaanu kula talinay in ummadda soomaaliyeed maanta aanay sidii hore ahayn oo oromo oo 100 milyana 50 milyana ay midowday waxaa wax ku noqonaysaan Itoobiya dadkiina Soomaaliyeed idinkoo mid ah xalayto iyo shalay iyo baadku maalmahan dhawaaqi ka soo baxayay runtii anigu aad baan uga naxay iyagana waxaan leeyahay waxba noqon maysaan haddaydaan mid noqonin haddaydaan inta midowdaan cadkaa leediinna aydaan doonanin wixii idinku xunna aydaan diidin wixii ummadda dee kula dhaqmaysaanna aydaan yeelin mid noqon maysaan waxaan leeyahay warnimayo haddee u kala baxdaan imanka baryahan war baa soo baxay anigu aan la yaabay waxaa la leeyahay shir dir baa jira anigu waxaan aaminsanay dirkaa iyo daaroodkaasi in ummadda Soomaaliyeed lagu qaybinayo Soomaali weyn ogtiin halkaan marayso dowladdii hore waa tan kala googooday tii Itoobiya wadinka arko maalin walba Oromo dee qodda awoodaba ayaa dhulkii isku haysaan waxaan leeyahay arrintaasi weliba ninka laga cabanayo wuxuu ahaa ninka wasiirka waxaan leeyahay waa hadduu ninku isku haddaanu ummaddiisa magac ka samaysan ee uu magac meel kale ka daydayo dhibteeday leedahay hadhowna meeshaasi anfici mayso dee waad garanaysaa madaxweynaha hore siduu tikreega ugu xunaayo siduu deema garanaysaa dowladda amaradeeda u fulinayay iyo maanta halkuu ku dambeeyey aakhirana way dambaysaa haddii dad islaama baynunay anigu waxaan leeyahay arrintaasi labadiinuba tanaasul sameeya isu keena ilaahay ka baqa soomaalidii idinku diirsatay naxdin bay 3 habeen ku jirtay naxdintaa ka saara waxaan hadalkaygii waxaan ku soo gabagabeynayaa kelmad dardaarana waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Maxamed Qaalib oo ahaan jiray wasiir dowladdii hore ah ninkaas waa nin odayo siyaasi weyn halkan buu mar noogu yimi dabadeedna meel lagu casuumay baan tagay ninkaas dadka ula dardaarmay
wuxuu yidhi waryaadheen anigu waxaan idinkula talinayaa ma markaa wax dooranaysaan mise markaa wax doorataan marka wax dooranaysaan dadka ka ugu wanaagsan doorta marka wax doorataan ninka aad doorataan u daaya oo intuu waqtigiisa dhamaysanayo ku daaya marka waxaan leeyahay dadka mucaaridka ah mucaaridnimada lama diidana waxaad inaad si milgale horta waxaad sheegaysa u sheegto oo aan waddanka duminayn dee madaxweynahana waxaa la habboon waxaa ku habboon wixii loo sheegay caqligala inuu qaato ee aanu odhan aniga unbaa wax garanaya oon dadka kala diidin markaa dadka mucaaridkaana waxaan kula talinayaa intaasaan kula talinayaa midna meesha waaba ku jiraayo markaad nin madaxnimada isku haysaan ee uu meesha qabsado ninkaasi ma wax wanaaji mise wax kharib hadduu wax wanaajiyo dee horta adiga madaxnimadii kuula oo waxaa la odhanaya wallahi ninkii kaalintiisii wuu ka soo baxay hadduu wax kharibo dee ninka mucaaridkaa markuu kursiga doonaya de waa u dan inkastoo qof walba ay u dan tahay inuu qofku wax wanaajiyo markaa mucaaridkan iyaga waxaan leeyahay khaladaadka eegta unoo doorashadu waktigay timaado ka faa'iidaysta waxaa kaloo waxyaabaha aan qoonsaday waxaa ka mid ahaa matalan markii waxaa la bedelay managerkii airportka aad baan ugu farxaa waxaan idhi wallahi haddii uu dadka isdhex qaadsiinayo kana la bedelayo dee waxaan siri marka dambe waxaa dhinaca kalena waxaa la bedeli doonaa maareeyaha wakaaladda biyaha dee may dhicin taa dadku wuxuu arkayaa madaxweynuhu inuu dhinacooda mooyo dhinaca kale aanu ilaalinayn waxa kale oo kamida waxyaabaha aan qoonsaday ee runtii aanan jeclayn inay arrintaasi halkaa dhaafto madaxtooyada la yidhi wuxuu ka sameynayaa xaraf magaaladii de waxay noqotay magaalo qabiilba meel buu degaa haddii xaraf madaxtooye laga dhigayo inuu madaxweynuhu ka dhiga maaha inaan reerkaa ka dhalan waa inuu ka dhigo taana waxaan leeyahay sunno xun bay noqon doontaa madaxweynaha kaa dambeeyaana hallaya ama airportku ka dhigi marka waxaan leeyahay sunnahana dadka ha u jidaynina madaxtooyada haddaad doonayso mid weyn maxkamadaha rar wasaaradda maaliyadda rar gobolka rar intaasoo dhan wasaaradda waxbarashada rar intaad rarto intaasoo dhan isu geeyo madaxtooye ka dhig maktabadan carabta rar marka waxaan leeyahay taana halkaa ay madaxtooyadu taallaa dadka u dhaxaysee ha ka rarin oo arrintaasi arrin qurux badan maahay kada marka ra'yiga dadweynaha iyo qof kasta oo caqli la eego arrintaasi ma qurux badnaa dee meeshana dad baabale baa la lahaayo ka daba yuusayo iyada lafteedu waa arrinaan qurux badnayn waxaa kaloon sheegayaa markaa waxyaabihii aan dowladda ugu bogay waxaa ka mid ah shaqaalayntii ilaa imika intaan arkayey ilaa ceergaaba ilaa barco qaabkii wanaagsanaa ee loo shaqaaleeyey ee dhowr qof oo walaalay meel walba ay ka soo baxeen ee la yidhi nasiibkoodu taasi waa arrin aan ku bogaadinayo waxaa kaloon ku bogaadinayaa qandaraasyadii oo iyadana si cadaalada ay dhammaan shirkadihii ka markhaati fureen in si cadaalada loogu sameeyo annaguna aanu aragno de t v-da iyadoo marka horena la naadinayo marka dambena la sheegayo ciddii heshay waxaa kaloo oo ka mid ah barnaamijkan shaqo qaran ee uu isna soo saaray iyadana imtixaanka lagu qaadayo waxaa kaloo ka mid ah oo aada u baahan weliba dadka dee dhaqanka iyo diintaba jecel ay inay bogaadiyaan hudheeladii farsamada xumaa ee miisiga iyo hablaha iyo dadku isdhex qaadiyeen ee la yidhi 11 wixii ka dambeeya 11 waqti dambe ah taasna inta badan imanka dad arrintaa ku cambaareynaya dowladda ayaan arkaa war waxaan leeyahay dadka wanaagsan waxaa diidanow hadla idinkuna oo inaad ku taageersantiin sheega haddii kale dee ninkaa waxaa doonayay iyo eeg hudheeladii waa wada furan yihin aniga imanka ninaan walaalnay hudheel buu haystaa ilaa 3 furnaada dee raashin buu iibiyaa cidina ma xidhin cidina ma xadidin dadka yaan been loo sheegine waxa weeye hudheelada noocaasi dhaqankeena iyo diinteena iyo dadnimadeena midna kuma wanaagsanaa in dowladuna waanu ku taageersanay weliba waxyaabo badan oo xun oo kala jiro in la ilaaliyo ay muhiimtay oo dhaqankeena iyo diinteena ba ilaalinaya taana waxaan leeyahay weliba culimada iyo dadka wanaagsan
iyo cuqaasha iyo salaadiinta waa in dowladda lagu taageero wixii uu kharibayna waa in laga hor yimaado oo si la difan laakiin loogu sheego dad baa ka cawda oo yidhaahanayo dadku hadalka ha iska daayaan hadalka la dayn maaye hadalka tamootida ah wax kharibaya ha la daayo waayo ninkii haddaanu dadkii nin wanaagsan oo dee dadkii wanaajinaya markuu soo baxo hadalkays ninka madaxweynihii hadalka isagaa baabiya qalinkiisaasaa baabinaya iyo qaabka u shaqaynayo laakiin haddii isagoo leexday la arko hadal la dayn maayo laakiin hadalka tamootida aan meesha laga inuna laga daayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ummaddan boggeeda barcad isu mariyo dhibaatooyin fara badan oo horaa jiray burbur siyaasadeed baa jira waktiganaynu ku jirno waxaynu u baahan nahay inaynu ka baxno waxaa dadkani haddaanu midoobin wax alaaliya wuxuu noqonayaa ma jiro soomaali halkay maraysa waa arkaysaan geeskii halku maraya waa arkaysaan dee waxay iska daa innaga oo waxaynu u baahanay inaynu indho dheer wax ku eegno intaasaan hadalkii kusoo gabagabeynaya waan badiyey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu